gacan ka hadal may aflagaadadaas inuu aflagaade oo qorigana afka waxa ay saari ay niman iga qabteen asagoo ugu dhufaraba 30 xabban kugu tirnaa oo dhaay wiilal ay iga qabteen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز أي مقال عصوب ولاشين ورسم عبد الله يوتيوب channel كالقدامنا يسوي فوليسن ولاشا فاضلن هتا يقول عصوب تاه سبسكرايب هذا فرنا ولجو جرت لايك شير كومنتس وقت هذا وحي في كذا وأنا كما سمعتين سيدا قرفت بدنا يديلا سعوتان للمانتين ومركز أي مقال عصوب ما أنتو حنكهالي دونا قبر صوماليد هوي صوماليد أو نفتي ذا كلا سو عرفت جوهر أي نفتيدا كلا سو عرفتين مقدشة أي تين نفتيدا أي خلق القشة هذا وحي يكون وشانا عبس اللي وحينا دربانيسا إن لقعاوية حاجة أمانك ثاني وفرحية عبد مودي أو هوي نفتيدا كلا سو عرفتين جوهر هذا نكسون عاصمة دلك الصومالية بل يعيدين كهر بعين إلى الدعوة مقال كفرحية بلاوية دمار السلام عليكم. عليكم السلام. ولا شيء يورن. الحمد لله والله. الحمد لله قفتي لها ليس فرحية عبد المديمية. والله يا واحد. أباي وننشا شالي هذا ورياه. أباي مقال كان أركي فيسبوك وريقة أنا اللي سمعها. أنا أتكلم. مركز دبعتك وقول عادي واي. waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago si wax looga qabto miyo ogolaan kartaa inaan ku imaado oo shaqadaas ka diyaariyo insha Allah waa ku imaanaya hadii ay bariyaan hay باسان كوكار قام ويدا ليك عليه حتى نفتيده هلستاي كاس إدافين بعد حارشكيو إياه ma garan karo sabab aan u sii fadhiyo iyadoo aan arkayo ilmada hooyo Soomaaliyeed oo qubanaysa waxaan ku wajahanahay guri si dhuumashaha ay ku joogto Farxiyo Cabdi Muuday oo ku yaala Muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa hadii uu saamaxaha iska leh awoodda saamaxaada dhibaatada ammaan ay ku geedaaman Farxiyo alxamdulillah admiido waxaan soo gaaray hoygii ay Farxiyo Cabdi Muuday uga sugnayd Muqdisho si aad u ogaataan waxa ay tabanaysa Farxiyo farxiya maanta waa dhibana mas'uuliyiin kala duwan ka tirsanaysa dhibaatooyin la xiriira nafteeda waxaana dhacdadii ugu dambeysay ay kala kulantay guriga xildhibaanad Naciime Ibraahim oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ka gadaal markii mid ka mid ah ilaaladeeda qaaska ah uu qori amaankiisa furan yahay ku qabtay Farxiya uguna hanjabay dil sida ay inoo sharaxayso dib intuu iga dagoon amaanka furto yiri 3 xabaa kugu dhufanaa marka isla markii waa buuq meesha ku batay xilwaanadan way soo baxday haday soo baxday micnaheedu warkii wax oo adiga kama soo qaadin oo aan weyn kama soo qaadin ana laakiin waa ka xumaaday oo calal xumo badan iga qabatay maadaama aanigana maxay ahayd oo aan wiil aabay wiil ii dhalin oo maxay ahayd aniga dibkeyga xanuunkeyga ka hadlay adeer koowaad labaad saddexaad aan qabin waana sax waana wax jiro wuxuu ilaahayna ii qoray waaye intaas isku calul xumay sidaas anigana aan baraha bulshada u wadaagay yay tahay xilbaanada aad sheegayso xilbaanada aniga beesheedii xildhibaan u tahay magaceed Naciime Ibraahim Yuusuf Allah baarlamaanka aqalka sare ka tirsan ha way ninkan staafka wuxuu ka shaqeeyaa guriga xildhibaanada guriga ka shaqeeyaa marka hadda koor maxaa soo qabateen hadda koorna sidaas albaabka isku dagaalnay maxaa lahaa hadda koorna albaabka isku dagaalno wiilal kale oo idin staafkeeda joogo wiilashaas aan iga celiyeen way qoriga markuu kugu soo taagay maxaa dareentay waxaan dareemay wadnaha afkii soo galay lagu yahay jiray waan naxay shalo dhan interest waxa madaxa dhan saayid yahay ilaa xaliman hurdin xalo dhan korkeyga jireynay marka aan hadlayo on live ka soo galay xataa ma aqaan waxaan sheegay ilaa hadda xataa mana sii dhageysanin
marka dad kale isoo wacayo oo igu soo waashto shalay ilaa xaliqadkayga iyo telefoonka inta iska damiyo haddaan damiyo xataa telefoonka xal dhan waa jiifin waayay cabsi darteeda ammaankoona ii jirtay ilaa haddana ani cabsiyaan dareemayo wadnaha i xanuunayo qof oo ammaanka loo jirto 30 xabaa kugu dhufan la dhahay lagu aadiyahay dhibaatadaasna dhowr mar igu gaa laakiin aniga hadda tan shalay ka xanuunsaday oo mar kasta igu soo noqotay ani xildhibaanada markii ay soo baxday maxay ku tiri askariga waxay ku dhahday oriyaa maxaa saas u sameysay xaq uma lihid inaa qori ku qabatid xaq uma lihid inaa aflagaadee sidee dhahday bas anigana waxay dhahday gaariga soo raac kadibna waxay dhahday raali noqo iska dhaaf anigu waa ooynaya markaas ha ooynin waxay dhahday aniga saas dhahay dadka iga celi anaa dhahay amar la'aanteeda qof ma soo deyn karta anaa dhahay marka aniga waxaan dhahay waxaa qalad in leecayaan dhahay oo qoriga oo ammaanka ii furto oo sidaas igu dhaha haddana dhib ma lahaan dhahay waa iska soo degtay gaariga aniga xaafadeeda ii soo dhaweysay waxaan dhahay waa degana inta ku ekaay waa ka soo degtay kadib ani talaabadii igu horreysay aan qaaday waxay ahayd maxaa lahaa qofka ayada waxaan dareemay ani iida inay ka dambayso tiri iga celi maadaama iga celi ay dhahdana raalli ma ka ahayn in la aflagaadiyo qori la igu qabto laakiin celiska yani ayada amartay hadday amartay sidaasay arrinta ku dhacday anigana waan wax aan ka xumaaday ilaa haddana aan caloosheedii iyo qalbigeyga iyo meel kasta maskaxdeedii xanuunayso waaye aan xanuun badan igu reebtay waaye marka laga soo tago inuu qoriga kugu taagay ammaanka kuu furtay ma jirtaa gacanka hadal iyo dhibaato kale ku geystay gacanka hadal may aflagaadadaas inuu aflagaadee oo qorigana afka waxa ii saaray ee niman iga qabteen asagoo ugu dhufaraba 30 xabban kugu tirnaa dhaay wiilal iga qabteen qoriga koraa looga qabtay mise koraa looga qabtay ha maxaad dareensanad haday nimankaas meesha joogi lahayn ani inuu idil lahay adiga maxaad jeclaan lahayd in isaga lagu sameeyo أنا waxaan jeclaan lahay sidoo ii cabsi geliyay ina maxay ahayd hadhow tibirka maalin oo nolosheedana halis oo ku gelin ninkaas aan xaqiisa waa ka dilanahay nin saddex xabba kugu dhufan ay dhaay qori ugu qabtay oo ii aflagaadeey ina sharciga maxay ahayd wax iiga qabtaa rabaanay mana la wadaagi kartaa magaciisa ha maxaa la buula oo aqaanani wax loogu darmo ka saay laakiin farxiya waxay nolosheeda kala soo qarartay jawhar oo ahayd magaalo in badan oo nolosheeda kamid ah ay ku qaadatay ku dhalatay ku soo barbaartay kuna ilma dhashay kadib markii ay cadaadis amni kala kulantay mas'uuliyiinta Hirshabeelle saraakiil qaybtood mootan tahay iyo kuwa nool oo ka tirsan Hirshabeelle ani jooran ku dhashan ku soo koray gabar joor ku dhalatay caan ku ah oo ku dhashay ilmo ku dhashan ahay hooyo ku noqotay marka meeshaas aan ku noolaan jiray hadda Muqdisho joogtaa jawharna deegaankaadii waay sidaan ogahay ma cabsi aad jawhar uga soo tagtay mise si caadi aad uga soo tagtay jawhar أنا جوهر عبسية هرت وقصة تجي إن عبسيدي أنا وقصة تجيني إن نفسدي دي إن أنا محيي إذا حمر كونه ولا هذا عاصمة دي دلك هدائما هذا إن قبل كمال كلام دجناي حدنا السيدة أكت هاي أنا برا بالشدة عنا كهاي إن بدن إن وحن تاجروا هاي تركيا ورجعنا تاجروا هاي وحيالها سان لعب صدي حافظي أنا دجناي عبسية هذا لا وقصة جوري ونفسدي إذا لعب صدي إن هذا المشان ساسا كسو دقي أيضا يدقنيد أيضا حلواني دي أيضا كسوق دبادي dhibaatooyin jawhar la kulanto hanjabaadii miyaa jira ها wax badan jawaado badan la kulmay marka aniga dad lama sii la wadaagin oo iska aamusnay marka tii shalay afkan furtay oo maxaa lahaa yani ebel waxay ahaayeen dad iga shisheeyay Soomaa maanta kii ehel kugu dhawaayba hadii sidaas uu kugu sameeyay aniga waxaan isdhahay farxiya maanta waxa ay hooyo iyo aabe u tahay 5 ciyaal ah oo 4 kamid ah ay iyadu dhashay waxayna la tacaalaysaa dabirida nolol maalmeedkooda iyo la cararidda nafteeda oo markii horeba ku qasabtay inay jawhar isaga soo cararto muqdishona kula kulantay in loogu hanjabo dil ani ilmahayga kala aabo waayo ilmaha waxaan u ahay 4 ciyaal waxaan u ahay hooyo iyo aabo iyo gabar aabaheed dhalo xanuunsaneed intaas anaa mas'uulka ahay guriga anaa u galay u baxay marka wax badan maamulka iyo guri ii geeyo aan shaqo aan ka helayo email macaawin lagu dhiibay iyo markaan tago waxyaalo badan la kulmi jiray waxaa la dhihi jiray beelhebel ay soo jeedaa geelo jaawi ka imaaday qoriya xabada lagu kuriday qori waa lagu qabtay dhibaato badan la geystay nina waxa Allah u naxariistay maxaa la dhahaa Abdiwili oo taqaana oo nabadsuugid jawhar ahay waxa taa lagu soo diray ilaa ay ku ogaado in qof miskiin iska ah oo qof horsoconin oo kale guri galas u bixisay ina ahay intuu ka ogaado daba galay markaas oo aanay dhahay qof alaala qofkii afaaraha soo galay isoo sheeg ana garabkaaga taagan waagaas isagu ma dabagal gaar ku sameeyay ku daba dhigay nabadsuugid mise waa lagu xiray ma la xirin laakiin asaa dabagal igu sameeyay baaritaan igu sameeyay su'aal weydiin waa jireen waxaan xasuustaa habeenada kamid ah inuu isoo wacay
noona baraa leegu soo wacay allahu naxariistee maanta waa iga tabaryaryahay wuxuu i dhahay asalaamu calaykum maxaa la dhahaa waxaa ku jirtid falkaa ku jirta haddaa ka bixi waysid saan isaana lagu yeela adi wax badan oo ii hanjabay anigu habeenkii uga cabsaday waxaan degnaay geelo jaaw gurigeena ku yaala habeenkii waa hurdi waaye markii damba asiga oo aan wacay aan dhahay saasaa lee dhahay markaas wuxuu yiri cid ku dhahaysa male iska seexo markaas waxaan dhahay in caawo muhurdi kari saa markii damba ii dhahay aniga waaye qofka saas ku dhahay danana ka lahay dantii aan lahayna waa gaaray madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayay u diraysaa baaq magangeliyo iyo mid garab istaag marka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya madaxweynaheena farmaajo xasan cali kheyr ra'iisul wasaaraheena sharafta leh maxaa la dhahaa gudoomiyaheena aabaha maxaa la dhahaa Cumar Finish dhamaan saddexda madax oo dalka u sareyso aniga amni daraan dareemaa cabsiyaan dareemaa maadaama ana dadkii dad igu dhaweey basidaas aan aniga aan ka weheshanay aan isdhahay cabsi dhol marna lee soo wacay oo nafsadeeda la orday oo haddana ninkaas saas igu sameeyay aan nolosheeda waxay ku jirtaa marka iyaga waxaan ka codsanayaa inaad si nabadgelin maxay ahayd siiyaan oo garab siiyaan iyo garab istaago ninkaasna maxaa la dhahaa leega meel mariyo oo maxay ahayd cadowgeyga ee 30 waxba kugu dhufanay dhahay haddana wixii kaleentana maxay ahayd garab iga siiyaan oo amni I hope inaad ila soo daawateen muuqaalka farxiye ee kaga hadlaysa ammaan darrada ay dareemayso aan u duceyno walaashan farxiya sida ay nala tahay waan ognahay dalkeena inay maanta ka jirin dawlad kontaroosha hubka dalkeena waxayna muuqaalkeeda ku sheegtay in askari uu hanjabay inuu 30 xabadood ku dhufan doono insha Allah waan u duceynaynaa meel kasta Soomaali joogto Allah ku amaansado wixii fikirkaada qaybta comments-kana wala wadaag khayr iyo caafimaad iyo sharaf iyo noolaada inta muuqaalka xig kuleeno sida ay nabadgeliyo gabdhahena lama gaara goobtiga dheh garadiyo caqli alla ku galaday kuwa gada garowiya gaalkacayo garbaharey ilaa gaarisa gabdhahena lama gaara goob weeyaan garadiyo caqli alla ku galaday kuwa gada garowiya gaalkacayo garbaharey ilaa gaarisa